السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga beejkayga ku xidhan waa walaashii Minda Cabdi Rooble soo dhawaada ayaan idin leeyahay meel kastoo joogtaan baalka iga daawanaysaan waa beejkaygii intiin hore noogu xidhnayd waxaan idin leeyahay aad baa u mahadsantihiin intiina gadaal nagaga soo biirtayna waxaan idin leeyahay soo dhawaada channelku waa channelkeeni insha Allah like iyo comment iyo subscribe ta hanaga iloobina aad iyo aad baan idin salaamaya meel kastoo joogtaan xilli walba idin tahay waxaan idin leeyahay idin wacnaada xilligu caawa waxaan halkan usoo fadhiistay oon doonayay maaragtay inaan idinla wadaago ama aan halkan maaragtay hambaliyo iyo duco iyo tixyaro aan u tiriyay aan ka sii daayo ama aan uga gudbiyo walaal qaali ah runtii bulshada dhexdeedana wax badan ka qabatay saa u ogtihiin qofka maaragta bulshada ka dhex muuqda wax qabad bulshada u leh aad iyo aad wuxuu u mudan yahay mar walba inaan bogaadino inaan maaragta hambalyeeno inaan u duceyno inaan dhiirigelino si qofkii maaragta uu dareemo inuu yahay qof maaragta bulshadiisii ay ogtahay waxa uu qabanayo qofka aan dadka waxa la yiri mahadsanid oranayna ilaahayna uu mahad celiyo marka waxa la doonayaa inaan noqono bulsho maaragta qofku markuu wax wanaagsan sameeyo dhiirigelisa maxay ahayd toolay wanaagiisa badan sheegta aad iyo aadna maaragta si uu qofkii maaragta hami u sii helo inuu halkii hawsha ka sii wado anigu run ahaantii say ogtihiin baa farleyda yare aan maaragta aan tuurto marmarka qaar waxaan jeclahay maaragta inaan inta badan aan u adeegsado bulshada maaragta qof kasta oo wax qabad u leh ama wixii bulshada ka dhex jira inaan maaragta kaga hadlo inta badan halkan waxaan caawa si qaasa maaragta uga hambalyeynaya oo aan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay maamo aad iyo aad u qaaliya la yiraahdo Nafisa Yuusuf Qanyare aad iyo aad bay u mahadsan tahay waa maamo u istaagtay islaaxa qoyska magaca waxaad ka dareemaysaan wanaaga uu wato islaaxa qoyska ayaa la yiraahdaa programkeeda ama barnaamijyada ay wado islaaxa qoyska waxa uu islaaxinaya waad garanaysaan waa qoys dhisan waa qaran dhisan qoys dumani waa qaran duman sawla socotaanba qoysaska Soomaaliyeed qurbaha markii la yimi dhibaatooyin badan baa dhacay isfahan la'aan baa dhacday burbur baa qoysaska ku yimi waad ogtihiin oo maaragta dalkii markii la joogay de maaragta adduunyadu sidan way ka duwaneyd reerku tol buu lahaa ehel buu lahaa cid looga ashkatooda bay lahayd haddii maaragta inanta eed ka timaada meelanka eed ka timaadaba laakiin imika waad ogtihiin oo tala farakahaad bay noqotay saynu qurbaha u nimi marka maamadaasi waxa ay u istaagtay runtii maamo ayaan iska oranaya maadaama ay maaragta tahay qof mas'uul oo qiimo badan waa hooyo Soomaaliyeed xilkii gurigeeda ku darsatay xilka ay dadweynaha u hayso iyo maaragta mas'uuliyadaas culus ay qaaday oo ay doonayso in maaragta bulshadeeda wax ka bedesho aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay jiro joog aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkaana ka sii wad hawshaada in bulshada Soomaaliyeed la badbaadiyana waa mid meesha ku jirta oo qiimaheedana leh bulshada Soomaaliyeed qoyska Soomaaliyeed qofkii badbaadiya ee ka qayb qaata qoys Soomaaliyeed disidiisa run ahaantii ama islaaxiisa waa qof maaragta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wanaag badan kala kulmaaya bulshaduna maaragta inay u mahad celiso loo baahan yahay maamadaas waxay wadaa program la yiraahdo islaaxa qoyska ma sha Allah tabarakallah qoysaska ay islaaxisaa dhibaatooyinka iyo turxaanta reeraha ka jira ay ka qayb qaadataa say meesha uga bixi lahaayeen sidii maaragta qoysaska isu soo ururisa maamadaas runtii waa maamo aad iyo aad u qaaliya Nafisa waxaan leeyahay jiro joog aad iyo aad bad maamo u mahadsan tahay adiga iyo intii kula midana runtii waxay mudan yihiin bilada dahab in loo suro halkan waxaan uga soo jeedinayaa oo doonayaa intaas hordhacayga ahaatee maxay ahayd waxaan halkan uga soo jeedinayaa
in yar oo aan u tiriyey oo buraanbura oo maaragta aan kaga hadlayo runtii waana mutaysatay sidai maaragta islaaxeeda ay ummadda soomaaliyeed uga faa'iiday. bismillaahi raxmaani raxiim. waa mar kale waxaan doonayaa inaan inoo bilaabo hadduu allaha awoodali ka dhigo buraanburkii. waxaan erayadan u qorahayaa maana mudan, waxaan erayadan u qorahayaa maana mudan, islaaxii qoyska umuhuma xamaadamiin, islaaxii qoyska umuhuma xamaadamiin, ummadda u adeegtay ahadoo la helayahay, ummadda u adeegtay ahadoo la helayahay, ubadki soo ururisiyo qoyskii kala ambaaday, ubadki soo ururisiyo qoyskii kala ambaaday, odaygii reerkiisa diidayay moo ku tidhi, odaygii reerkiisa diidayay moo ku tidhi, hooyadii linteedu qubahanaysay ahaa mu tidhi, hooyadii linteedu qubahanaysay ahaa mu tidhi, culimo ugu yeedhayo caaqiladii ummadda, culimo ugu yeedhayo caaqiladii ummadda, oo ciladii laga saaray reerkii culaha iska jiray, ciladii laga saaray reerkii culaha iska jiray, ciladii laga saaray reerkii culaha iska jiray, cafiisna lagu baaqay reerkiis wada calmaaday, cafiisna lagu baaqay reerkiis wada calmaaday, islaaxii qoyska umuhuma xamaadamiin, islaaxii qoyska umuhuma xamaadamiin, ummadda u adeegtay ahadoo la wada ogyahay, ummadda u adeegtay ahadoo la wada ogyahay, khilaafkii soo ururisiyo eelkii naga dhex jiray, khilaafkii soo ururisiyo eelkii naga dhex jiray, ubadkiisu keentay qoyskoodii kala ambaaday, ubadkii soo ururisiyo qoyskii kala ambaaday, odaygii reerkiisa diidayay moo ku tidhi, odaygii reerkiisa diidayay moo ku tidhi, hooyadii linteedu qubahanaysay ahaa mu tidhi, hooyadii linteedu qubahanaysay ahaa mu tidhi, culimo ugu yeedhayo caaqiladii ummadda, culayskii laga saaray reerkii culaha iska jiray, ciladii laga saaray reerkii culaha iska jiray, cafiisna lagu baaqay qoyskiis wada calmaaday, nafiisa yuusufey nalkii ummadda u baxay, nafiisa yuusufey nalkii ummadda u baxay, nimcadii noo hortay uu nafluhu rabaay, nimcadii noo hortay uu nafluhu rabaay, naciimo lahow ku geeyey naartu ahaa xuntee, naciima lahow ku geeyey naartu ahaa xuntee, jannada ku nagahad rabbigay naar ha kahaa xijiyo, jannada ku nagahad rabbigeen naar ha kahaa xaslado, rabbigeen naar ha kaa xaslado ayaan leeyahay. maasha allah tabaaraka allah. halkaa waxaan maaragta hawada u mariyey walaasheen ama hooyadeen ama maamadeena
qof aad iyo aad iyo aad qiimeyn iyo sharaf ba u leh quraan buryaro aan ugu talagalay duco iyo maaragtay dhiirigelinba aan ugu talagalay inaan maaragtay hawada u mariyo qof kasta oo bulshada u istaaga waxqabadkeeda runtii waynu u baahannahay inaynu maaragtaa aynu noqono bulsho qof waliba halkuu kaga habboon yahay hawsha ka qaban kara qof walibana maaragtaa uu u istaago oonu odhanin aniga uun baa maaragtay wax qabsanaya ama anaaba taydii haysataaye danaha khaaska ama danaha caamka ah uu danihiisa khaaska ku kabo oo ilaahay subxaana watacaala ajarna uu kaga raadsado ummadana maaragtaa ay ku dayato oo u noqdo maaragtaa ummadda tusaale wanaagsan qofku markuu wax wanaagsan sameynayo qoys la badbaadinayo wax dhayala maaha ama wax fudud maaha qofka hawshaa qabanayaana hawl weyn ayuu hayaa ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay iyada iyo inta kala shaqeysa ee culimada ah ba waxaan leeyahay jannada ilaahay subxaana watacaala idinku marti qaado aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamaya meel kastoo joogtaan ba akhyaarta beejkayga ku xidhan Nafise Yuusuf iyo inta la shaqeysana waxaan leeyahay hawshiinu ha socoto guul ayaan idiin rajaynayaa cid kasta oo Soomaali u gargaarta oo garabkeeda istaagto bulshada wuxuu qabatana anigu runtii maaragtay intii awoodeyda ammaan iyo bogaadin iyo ducaba waan la garab taaganahay waa anigoo ah walaashiin Hinda Cabdi Rooble waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala isma dhaafno ku xidhnaada pageka mar walba nala socda hanaga ilaawina like-ta commentiga iyo subscribe-ta aad iyo aad baan idiin salaamaya meel kastoo joogtaanba waxaan idin leeyahay nabad geliyo